yahay verb to be past waa dhacdo ficilaansho la soo dhaafay verb to be past waa dhacdo ficilaansho la soo dhaafay is the state of being waa xaaladda aansho which taasoo tells noo sheegayso what person was wuxuu qofka ahay or ama what thing was wuxuu sheegahay verb to be past wuxuu noo sheegaa waxa uu qofka ahay iyo ama wuxuu sheegahay formula wuxuu leeyahay qaacido ama astaan subject plus verb oo verb maxaa laga wadaa verb to be past verb maxaa u taagan was iyo were markaan u taagan plus complement oo ah dhameystire I she he it waxay qaadanayaan was you we they maxay qaadanayaan were ay qaadanayaan were I she he it waxay qaadanayaan was you we they maxay qaadanayaan were ay qaadanayaan I was a student ardayan ahay was I a student arday miyan ahay I was not a student man arday wasn't I a student arday man miya I was a student waxaan ahay arday was I a student arday miyan ahay I was not a student ma ahayn arday wasn't I a student arday ma ahayn miya we were people waxaan ahayn dad were we people dad miyaan ahayn we were not people anaga dad ma ahayn weren't ama were not we people dad ma ahayn miya anaga she was at work shaqada ayay jirtay shaqada ayay joogtay was she at work shaqada miyay joogtay she was not at work ayada ma joogin shaqada wasn't she at work wasn't she at work ayada shaqada ma joogin miya exercise macnaa layli shaqo guri my mother hooyaday was in the kitchen kushiinka ayay ku jirtay kushiinka ayay joogtay my mother hooyadayda was in the kitchen kushiinka ayay ku jirtay you were my brother waxa ahayd walaalkay you were my brother walaalkay ahayd they were boys waxay ahaayeen wiilal they were boys waxay ahaayeen wiilal I was maxaa marka I was a worker shaqaalaan ahay I'm a worker maxaa laga wadaa haddaan shaqaale ahay waay I was a worker maxaa laga wadaa waxaan ahay shaqaale ahay waay laakiin hadda inaad eena laga yaabaa oo boss tahay iska ilaali marka Ali was a student Ali arday uu ahay Ali was a student Ali wuxuu ahay arday you were my pal you were my friend waxa ahayd saaxiibkay you were my pal saaxiibkay ayaad ahayd we were Somali ayaan ahayn we were Somalis Somali ayaan ahayn it was roof saqaf ayay ahayd it was roof macnaheena jiingad ayay ahayd saqaf ayay ahayd the cat bisado was in the office xafiiska ayay ku dhex jirtay the cat bisado was in the office xafiiska ayay ku dhex jirtay my pen qalinkeyga was in the pocket jeebka ayay ku dhex jiray cashiradan waxaan ku qaadanaa verb to be past intaas aan ka hadlayna waa verb to be past inta ku kulmi doona cashirkiisa xiga sidaa iyo amaana la isma dhaafan